wiilkan yar sheeganay jigjiga maal magaciisana loo yaqaan Samatar Amiin Bade horta wuu jiran yahay wuxuuna ka jiran yahay maskaxda waxa la siiyaa kiniinkii hurdada iyo kii maskaxda ee foodkooga la oran jiray sidaa darteed waa nin waalan oo sarxaansan oo fayoobay sidaa darteed waxa uu yiraa iyo waxaanu sheegayaa nin waalan waxba ma lagu qori ilaahay baa nin waalan waxba ka qoraynin waa nin waalan bil aadan waxba ka qori maayo horta inuu waalan yahay waxaan ku cadeynayaa una fayoobayn waa ninka 18 sano dibadda joogay reerkoodina sida filimkii hore uga daawateen nolosha ay ku nool yihiin waadyaab ninka 18 sano maqnaa bal haduu fayow yahay ninkan soo magacaabay jijiga maal muxuu wax ugu qaban waayay reerkooda haduu nin fayow yahay iyadoo taasi jirto reerkoodii intaas oo dhan ka maqan yahay ayuun hadan reerkoodii waxa la wuxuu tariyaa jirin hadana weligii lama soo hadal reerkoodii anigu Xaliimo Xuseena oo Samatar Amiin hooyadii oo magaalada jijiga ku dhashay oo isagana ku dhalay عدكي ما مقلين والله أنا مقلين والله أنا بنشيكي نلاش عن كل والله إن إله معبود بأك حرير يلا هذا لبض وجر إلا وان والن نمر هير كود وحقوق كمان إن هذول نقمة يستيقظ مثلا نتبدأ جراي محو هير كود وحقوق كمان واي نروح لقى دقيسنا كرم ما هنكاسي سوسدا ما ساساني قالت هاي جواب تاس واسدا روحي عقلي قال هو قرنا يا فيوبي بالآذني إنه نكاسي نين فيو هاي نتنا هاي مسكحيان بالآذن إنه هاي وحبكو حقيقة وحبكو حقيقة نيسا وانك قبل إن أدرتي وقربها لا جوكتا قرعيي انتو قرعيي قبل إن أدرتي وتبدأ لا جوكتا ninka la ilaa Samatar isku magacaabay jijiga maal oo magaciisa loo yaqaan Samatar Amiin Bade waxa ka sii daran gabadh in adeertii oo qurbaha la joogta ayuu garciyay markuu garciyay buu hadana diiday uu tafiray uu yiri aniga ma aha waaba wax la yaabo diinta islaamka ee suubanayd ee ilaahay ku dhaqmaynay inuu meel kaga dhacay dhaqankii ni Soomaalida ah fiicnaana meel buu kaga dhacay ninkaas uu xumeeyay oo waxa uu sameeyay magaranaysa uu gabadha ku sameeyay uu garciyay uu hadana magaran ku diiday uu tafiray ayuu diinta islaamkana meel kaga dhacay dhaqankii Soomaalidana meel buu kaga dhacay ninkaas oo isku magacaabay jijiga maal magaciisana loo yaqaano Samatar Amiin Bade gabadh hadana waxba ka sii darantaa gabadh uu 3 sano la sheekaysanayay ayaa xilligii ugu dambeysay guurku ay taagnayd inuu guursado iyadoo xafladii la joogo magaranaysa uu isku gabadha uu ku guursan lahaa kolkaas uu kaga bilaabay taygaygu waa $70 warbal waxaasi bal dhageysta wuxuu ninkaas ku hadlay ma nin fayow waxa ku hadli karay la waa nin waalanay ma nin fayow oo maskaxdiisu dhan tahay ayaa oran la taygaygu waa $70 meesha gabadh loogu meherinayo ruux dhan ma garan naftiisa lagu aaminayo oo bil aadana gabadhii 3 sano uu sheekaynayay ayaa markii uu yiri taygaygu waa $70 ayaa halkii kaga carartay waxayna raacday ku taygiisu $5 yahay oo ka maskax fayow Samatar Amiin Bade oo ma garan jijiga maal isku magacaabay ku ka maskax fayow oo taygiisu $5 yahay ayay gabadhii guursaday الله وبركاته إلى ما تقول داريه من نجاسة تد وشيكرة أو نفيو أو نندن أو مسكحدي سوء أيضا تاي وركل كهذا ليه إنه عنده سلا يرام يدان أرك عند أذى كان إنه قرع يهي عند أذى كان أكو عطينا إنه نجاسة قرع يهي عند أذى كان ومجرن ونروح بكلام من ونروح بكحجونين ومجرن سا عنده سلا ليه يهي وصوت هاجين دي سنة سيد بالآذان كويل الحسبان أين ويل بقصدنا بالآذان كإندي سنة ما بلغ قصدنا يا وقرع وروا إجا سؤال تذو سؤاله بل إذا كان تدو إذا وديه من نجاسة فيو أنا حقيقة ما فيو بان إذن الله ما نفيو بان دونه